markale isku soo noqod wanaagsan taxanaha filimka aan idiin bilaabay ayaan maanta idiin wadaa qaybtii labaad bilowga qaybtii labaad ee filimka waxaan aragnaa nin laabtoobkiisii ka daawanay qaybtii hore ee filimka waxuuna ninkaani magaciisa ahaa Martin waxuuna sidoo kale ninkaani 40 sano jir waxuuna ninkaani ahaa nin shuluq ah waxuuna ninkaani qabayne qof kastana waxuu ninkaani u arkay inuu isaga yahay wax matare yacni inuu yahay nin nacas ah waxuuna ka shaqeynayay goobta baakinka ee London marar badan ayuuna daawaday filimka qaybtiisii hore haddii aadan adigana soo daawanin qaybtii hore soo daawo markaas waad fahmi doontaa muuqaalkeena maanta sida Martin oo kale kadibna si lama filaan ah waxa uu siisay kaamirada ee baakinka ku arkaya laba shakhsi oo taagan marka uu labadan shakhsi u fiirsadana wax u malay inay yihiin lamaano dhalinyaro ah waxsoo ku dagaalamaya goobta baakinka ee baabuurta wiilka waxaa lagu magacaabaa Laan waxaan ag joogan isaga gacalsidiisa baabuurka aabihiisa agtiisa isagoo uu furihii gaarigii ka lumay ninka Martin ayaa soo baxay isagoo soo qaatay olbira waxaana markaan u imaanaya lamaanihii wiilkii Laanana wax u maleynaya inuu ninkaani maarta uu halkaan u yimid inuu jibiyo qufilkiisa baabuurka waxaana bilaabay wiilkii Laana inuu si xun ula hadlo ninkii Martin markii uu dhageysan waayay afragaadada wiilkan waxuu la soo baxayaa biskooladiisa waxaana bilaabay wiilkii Laana inuu ka tagto lugta saaxiibtii Laan markii aragtay in saaxiibkeedii la dhaawacay aad bay u qaylisay Martin markuu arkay gabadhaan qaylinaysa sidoo kale isagana wuxuu ka tagtay caloosha dabadna ulbir ayuu madaxa kaga garaacay isla markiiba way miir beeleen labadooduba kadibna ninkii Martin waxuu halkaas keenay baabuurkiisa labadooduba baabuurkiisa ayuu soo saaray waxaana ku soo laabtay qolkiisii waxaana bilaabay ninkii Martin inuu si fiican u daawado qaybtii hore ee filimka sidoo kale buug ay agtiisa yaalay waxaana buugan ku dhex jiray oo kaliya sawirada qaybtii hore ee filimka kadibna waxuu soo qaadanay gaarigiisa isagoo markaas ku waday lamaanihii ninkii Martin wuxuu markaan u imaanaya ninkii uu doonayay inuu ka kireysto guriga oo lamaanahan geyn lahaa laakiin ninkii ayaa markaas bilaabay inuu ku soo hadal celiyo kadibna mulkiiliye guriga ayuu bir madax kaga dhufanaya isagoo markaas dhaawacay isla markii wuxuu gaari ka soo dejinaya wiilkii Laana iyo saaxiibtiisa si degdeg ayuu markaas u xirxiray intaas kadib ninkii Laana wuxuu markaan soo qaatay maqas isagoo markaan dhammaan dharkii ka jeexay Laan saaxiibtiisa wuxuuna ka wada dhigay dhammaan dharkeedii kadib ninkii Martin telefoon ayuu u soo dhacay isagoo markaas laga soo wacay goobtiisa shaqada laakiin wax uu doonay ninkaan Martin inuu dadkaana ku sameeyo tijaabadii qaabka darneed taas uu ku sameeyay ninkii professorka ahaa qaybtii hore ee filimka kadibna subaxdii waxaan aragnaa ninkii Laana oo jeef gurigiisa isagoo markaas hurdayay isla markiiba hooyadii ayaa meeshaas ugu timid bilawday inay ku qayliso oo inaga kiciso maxaa yeelay maanta isaga dhakhtar ayuu la ballamay markiisa ka tagtay ayuu fiiriyay buugii waa uuna soo baxay isagoo markaas labistay laakiin inta uusan soo bixin wax uu bilaabay inuu markaas qoodiyo xayawaankiisa u dhaqan jiray kaas ugu jiray meel markii xayawaankiisa soo qoodiyo waa uu soo baxay isagoo markaas u imaanay hooyadiisa iyo dhakhtarkii kadibna Martin hooyadiisa ayaa markaas wuxuu u sheegay dhakhtarkii in marar badan ay maqashay wiilkeeda Martin oo qarwaya dhakhtarkii ayaa isagoo hooyadii jawaabta siinay ayuu yiri Martin waxaa laga yaabaa inuu dareemayo xanuunka qaniinyada laakiin Martin hooyadiisa ayaa midaas diiday idoo markaas dambiga oo dhan wiilkeedii dusha ka saartay aan ku xusay daawadana socodsi muuqaalka oo la galay muhiim ay noo tahay haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir laakiin dhakhtarka ayaa bilaabay inuu salaxo ninkii Martin ninkii Martin midaas aad buu ugu xumaaday ninkii Martin dhakhtarkan muusan jecleen oo aad buu u necbaa dhakhtarkan wax uuna nacay dhakhtarkan habdhaqankiisa Martin iyo hooyadiisa waxay markaana bilaabeen inay cunteeyaan markaa Martin hooyadiisa wixii dabaqsar ka maqlaysaa muusiga taas aad u dhibaysa waxaana bilaawday inay markaana soo qaadato ul idoo markaas joogeenaysa dabaqii kore laakiin dabaqii kore waxa ku qabeysanaya nin isagoo markaas halkaas fadhiyay isla markiiba ninkii dabaqsar ku qabeysanaya arintaas aad buu u dhibsaday waa uuna soo baxay isagoo markaas u imaanay ninkii Martin wuxuuna bilaabay inuu hadado ninkii Martin isagoo markaas jugeynaya isla markiiba ninkii Martin markuu ka tagay ninkii waxuu bilaabay inuu daawado qaybtii hore ee filimka si uu markaas u dejiyo qaabkii uu dadkan isugu xirxiri lahaa waxaana ninkaan Martin ka goonayd inuu sameeyo tijaabadii uu sameeyay professorkii wuxuushka ahaa kadib ninkii Martin waa uu soo baxay isagoo markaas imaanay baakinka waxaan markaan halkaas ku soo abdoomanaya lamaane sidoo kalena waa halkaas ku soo abdoomanaya laba gabdhood waxa markaas Kenya halkii isaga ugu talagalay intaas kadib dhamaantoodii wuxuu soo Kenya meel isagoo markaas bilaabay inuu dhamaantoodii wada xirxiro waxaana ninkaan Martin doonay inuu markaana sameeyo tijaabadii uu sameeyay professorkii wuxuushka ahaa isla markiiba ninkii Martin waxa markaan soo dhacay telefoon iyadoo markaas loo sheegay in atirisooyinkii qaybtii hore ee filimkii ku jiray kuwaas lagu magacaabay Rijal Iyani ay imaan doonaan London iyagoo ka soo qayb gali doona bandhigiisa waxna markaan ku dhaweyn inay yimaadaan London waxaana sidaas u sameeyay sababtoo Martin ayaa sheegay dhowr jeer ka hor inuu yahay wiilka agaasimaha ka filimka lagu magacaabo Quentin Tarantino waxaana dalbaday atirisooyinkaas isagoo markaas u sheegay inuu aad u dhacay bandhigooda maxaa yeelay wuxuu ku daawaday filimkan qaybtiisii hore markaana bandhigii qaybtii labaad ee filimkan waxa lagu abaabulay London isla markiiba ninkii Martin wuxuu markaan ku soo laabanaya gurigiisii wuxuuna markaas arkay in hooyadiisa ay isku dayayso inay isaga disho laakiin Martin waa uu fahmay hooyadiisa waxa ay doonaysay wuxuuna ogaanay ninkii Martin in hooyadiisa ay heshay buuggii sariirtiisii saarnaa buuggaas ay ku sawirnaayeen sawiradii hore ee qaybtii hore ee filimka
sidoo kalena buuggaasi waxaa ku qornaa 12 qof kuwaas uu ku sameyn doono tijaabadiisa. hooyadiisana waa ay fahamtay waxa isaga uu damacsan yahay aad bayna ula dagaashay iyadoo markaas bilowday inay jeexdo buuggii. laakiin buuggii markii ay jeexday ninkii Martin arrintaas aad buu ugu xanaaqay. dabadna ninkii Martin wax uu soo xiranaya jaakada shaybaarka, laakiin markaan xayawaanadii uu dhaqanay ninkii Martin ayaa markaan sakadiisa u soo baxay halkii ay ku jireen. waxayna markaan bilaabay inay hooyadii markaan ku dhagaan. hooyadii waxay bilowday inay markaan cabaado, waxayna markaas ku dhacaysaa dhulka. laakiin ninkii Martin ayaa markaan bilaabay inuu birtiisa ku daldalo, isagoo markaas marar badan ku dhuftay birtiisa. halkaas ayna ku mir dabeelanta hooyadii. ninkii Martin waxa uu bilaabay inuu hooyadiisa la qaato qalada taasoo dhaawac ahayd. isla markiiba waxa uu maanay ninkii korkooda deganaa, kaasoo ninkaan Martin garaacayay. wuxuuna sidoo kale arkay ninkii Martin awooda dhiiga, laakiin ninkii Martin ayaa bilaabay inuu kacbad ku dhufto, wuxuuna ka dhaawacay lugta. sidoo kalena waa uu soo baxay isagoo markaas u maanay dhakhtarkii, wuxuuna bilaabay inuu ku calaacalo dhakhtarkii. laakiin dhakhtarkii ayaa markaan ku soo jeestay isagoo markaas madax ka toogtay. intaas kadib hooyadiisa iyo ninkii korkiisa degan ayuu markaan soo saaraya gaariga isagoo markaas afka soo xiray. laakiin isla markiiba wax wali afeen ugu tibay tirshadii Yeni, taas oo sheegtay in la dan dhow imaan doonto. ninkii Martin ayaa markaas dhaqaajiyay isagoo markaas soo qaaday gabadhii Yeni ahayd si ay markaas ugu qayb qaadato qaybtii labaad ee filimkii. laakiin waxba ma aysan ka ogeyn fikradda uu aaminsan ninkaan Martin gabadhii Yeni waa uu soo qaaday isagoo keenay gurigii. laakiin markii guriga uu keenay ayuu bir madaxa ugu dhuftay isagoo markaas miir dabooliyay. markaana gabadhii dhulka ay ku dhacday iyadoo markaas miir daboolantay. intaas kadib ninkii Martin wuxuu markaan diyaarsanay madiyihiisa isagoo markaas diyaarinaya qaab qaliinkii oo dadkan u adeegsan lahaa. waxaana markaas doonay inuu ku daydo qaabkii uu professorka u dhaqmaayay. waxaana markaas doonay inuu hirgeliyo tijaabadii professorka. wuxuuna soo baxay isagoo markaas soo qaadanaya tooridiisa. waxaana markaan u maanaya gabdhii oo soo qabanaya mid ka mid ah. waxaana bilaabay inuu markaas jilibkeedii jeexo. wuxuuna soo baxay isagoo markaas u yimid ninkii korkiisa deganaa. wuxuuna bilaabay inuu markaan dhammaylkii ka jibiyo. adigu dambeyntii wuxuu markaan dhamaystiraya dhammaan tijaabooyinkii uu ku sameynayay. markaan ugu dambeyntii ninkii Martin wuxuu markaan ku guuleysanaya inuu dhammaantood isku xiriiriyo isagoo ay u hirgashay tijaabadii uu doonayay. intaas kadib wuxuu bilaabay inuu markaan cunto u keeno. waxaana markaan ugu horreysay gabadhii Yeni ahayd, laakiin gabadhii Yeni cuntadii waa ay diiday oo markaas toortay. laakiin midaasi muusan ka yeelin, wuxuu markaas u adeegsanaya tobo afka gelinaya tobadii isagoo markaas sidaas ku siinaya caano. isla markiiba wuxuu helayaa fariin isagoo markaas doonaya inuu la hadlo. laakiin gabadhii Yeni ayaa markaas bilowday inay qayliso. qayladeedina aad buu u dhibsaday. wuxuuna bilaabay inuu markaas gabadhii Yeni carabka ka jaro. dhammaan dadka ayuu markaan isku xiriiriyay isagoo markaas u qaabiyay qaabkii uu professorka u qaabeynayay. wuxuuna markaan ninkii Martin ku raaxaysanayay muuqaalkooda. laakiin muuqaalkana waxa uu mid wasaq ah kaasoo aan la fiirin karin. laakiin waxaa jirtay hal haweeney taas uusan ku sameyn tijaabadan. haweeneydaasna waxay leedahay duur, waxayna markaan dareemaysaa xanuun, wayna soo cararaysaa iyadoo markaas ku soo xiraysa gaari. laakiin waxaa ka daba ninkii Martin albaabkeena waa u furmi waynaya. laakiin haweeneydii uur kale dalkaas ay ku dhalaysaa. laakiin markuu midaas arkay aad buu u carooday isagoo markaas ka carooday naagtii ka baxsatay. wuxuuna markaana bilaabay dadkii qof ka mid ah inuu markaas qoorta ka jaro. wuxuuna markaan u imaanaya gabadhii Yeni isagoo markaas doonaya inuu dilo. laakiin gabadhii Yeni ayaa markaas bilowday inay qooraha ku dhufato. wuxuuna markaas ku dhacayaa dhulka. waxaana markaan soo qaadanaysaa dowladii uu ku siinaya cuntada. waxaana bilowday inay markaas ka siibto surwaalka iyadoo markaas u gelinaysa dabada. waxaana markaas bilowday inay xayawaankiisa u dhaqanaya halkaas ku rido. xayawaankiisana waa markaas ka galiya gudaha isagoo markaas yeelaya calooshiisa. kadibna waxaan aragnaa ninkii Martin oo daawanay qaybtii hore ee filimka. laakiin qof kasta ninkaan Martin wax u arkay mid aanan faa'iido lahayn, kaasoo weliba maskaxda ka jiran. taasina waa sababta u cajab gelisay qaybtii hore ee filimkan, taas oo sameynaya professorkii. laakiin waxaan ogaanaynaa ninkaan Martin wax kasta uu sameynaya inay ahayn mal awaal oo kaliya, oo wax uu sameynaya meeshaan wax jira. wuxuuna daawanayay qaybtii hore ee filimka oo kaliya. waxaana markaan halkaas ugu dhamaanay filimka isagoo daawanaya oo aad ku jeclaa, kaasoo ahaa qaybtii hore ee filimka. wuxuuna weli joogay goobtiisa shaqada isagoo weli daawanaya laptopkiisii. sidoo kale anagana qaybtii labaad ee filimkan halkaas ay ku dhamaatay. intaan muuqaalkan mid ka xiiso badan kulmi doono, sidaas iyo nabadiino.